أمريكا سنة 1989 nin hodan ah ayaa ibsaday jasiiradan oo lagu magacaabo jiray Little Sun. Jasiirada waxa uu siistay $7.95 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Sababta uu iibsaday jasiiradani waxay ahayd sabab la yaab leh. Wuxuu u iibsaday inuu hablo yaryar oo ta u weyn da'deedu tahay 12 jir kaga ganacsado. Waxa uu ku soo dhawi jiray hablaha yaryar in waxbarasho free ah la siinayo, laakiin marka ay jasiirada soo galaan wax walba isbedeli jireen. waxa uu bilaabmi jiray kufsi, jirdil, iyo in xataa qaarkood hilibkooda la jarjaro. ninka hodanka ah ee jasiirada iibsaday arxandaradiisana ay gaal iyo islaamba ka yaabeen. magaciisu waxa uu ahaa Jeffrey Epstein. haddaba su'aasha halkan taala waxay tahay, waa kuma Jeffrey Epstein? sidoo hodan ku noqday? qaar ka mid ah sheekooyin uu ku dhibaateeyay hablo yaryar, qaabkee loo qabtay oo loo xidhay, iyo qaabka uu u dhintayba waxaad ka ogaan kartaa muuqaalkan soo dhignay YouTube-keena profile-ka saaran ama ku qor Hormuud Media. hana ilaawin inaad nagu soo biirto.